قفكم وحوليه شيخ سؤال شو ويديي شيخ سؤال شو فهمي طبعا قف هدي أسوي قرآن آخرين يا وآيادس نبغى إن نكسر لنا أمر يسوع وقفك مركا أنتو كسر لي صلاة كجرا قرآن مركو آخرين نبغى أنتو كسر لي صلى الله عليه وسلم كدبنا أصي وتي قراءة ذي حكم كذا محيطا روحا صلاة مركو كتشرو النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا صلاة دحدة وحا كتشرا مشغولة مر بعد الصلاة كتشرتو واد مشغول سنتها روح مشغول سنة لما مشغولية وحكا لما سهرو صلاة هذا كجرتو صلاة وذكر أقوال يا أفعال خاصة وهي وحكسيات المسو قلين كرتيت مال والبعض مريسو ذكري خاصة الله تلقى عليه ذكري وحنا هاي المسو قلين كرتيت سيكستو خير بدين ساس تراد آيات أمريس النبي إن لو وصل صلى الله عليه وسلم هدي آد أخريدو قرآن صلاة دحديدا سلين ميسي دوات كسعون لأنه واحدكم مشغول سنتي صلاة بدكو جرتها صوما واتكو سلين دونتا ومركز التحيات سنيسو لبدا التحيات بالنبي قال لغو صلي يا صوما صلي وهالكاسو كجرا مركز صلاة دقوده إذا ميلان صلي كجرين مقلين كرتين مركز صوما وحين لم يتعي وكله ميل أن لو قلت لك سبحان الله أم الحمد لله إنك جلس صح مياه سبحان الله والذكري الحمد لله والذكري الله أكبر والذكري لكن مدول بميل بيلا ذا زما صلي والذكري ميل بولي مدول بمشي شرعات كل شيء كليا الحلا ساس درد آيات دوات آخرين بعدما الصلاة كتشرتو وأنا كسرن هذا تقص اللي دم حد عين صلاة دي مبوري سامايا صلاة مبوريسة وهي أصحيسها لكن واضح خلطنتي خلط كات كشينا صلاة مبورينية صلاة وهي أصحيسها لكن ماشى إن تصلي جلسة ما هين سداسوي شيخ نكم ويدينا يا وفق أصحاب السنة كانوا أي صلاة واجب كلا أقيمي محاد سمين مكبح صلاة سنة مسي وطلميسني واتكبحيسا صلاة السنة الصلاة الأقيمة واجب كأه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت وفي رواية إلا المكتوبة صلاة هذه الأقيمة صلاة متشر تبو النبي صلى الله عليه وسلم أن أهين مد الأقيمي صلاة الله أقيمي واجب كأه صلاة أن أهين متشري كرتو مرة صلاة الأقيمة sidaas daraadeed adoo salaada ku jira sunnada hadii la aqimo waa inaad salaada ka baxdo oo aad salaada waajibka ah gasho culimada qaar baa waxay yiraahdaan hadii salaada sunnada ah qaybtii ugu dambeysay aad ku jirto oo aad ka gaari karto imaamka takbiirtiisa Allahu akbarta imaamka aad la xidhan karto marka waad ka gaarsiin oo waad dhameystirani لكن هذا دن كجارسين كرين إمامك التكبير تيسي حرشدي سأدن كجارسين كرين وين تكبحده هل كعلماء قاربا قلية هذا الكاس لكن حديث النبي جوحوي هذه صلاة واجب كلا أقيمه صلاة سنة مجرته والله أعلم شيخ نكم حوليه هاي birthday is birthday celebration or wishing someone happy birthday allowed in Islam qofka inuu u dabal dego maalinta uu dhashay iyo qof inaad u tahniyadayso oo dhahdo happy birthday ma xay ka qabtaa diinta dhaqan islaam ma happy birthday dhaqan islaam ma waa dhaqan gaalo sooma caadad gaalada laga soo gaaray waay nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man tashabbaha biqawmin فهو منهم روحي دد كله dhaqamadooda qaato isku shabaha isu ekaysiya ayagu kamid yahay buu nabiga sallallahu alayhi wasallam
ummadda muslimku waa ummad dhaqankeeda iyo caadaadkeeda kala madax bannaan ummadaha kale ma ummad waxay aragtaba iska urursato oo dadka iska daba gasho ma aha laakiin waa ummad madax bannaan ayadaa xaq ah dhaqankeedaa xaqa iyada in la raaco waayo ma inay iyadu ummada kale wax ka urursato sidaas daraaddeed sax ma ah happy birthday waa wax shareecada khilaafsan waa dhaqan gaalo waayo wallahu aclam sheekhana wuxuu leeyahay ninkan wuxuu weydiinayaa cumra ayaan aaday uu leeyahay cumradii waan dhammaystay markaan cumradii dhammaystay aan ziyaaro aaday madiina ziyaaradii markaan aaday oon bogay madiina markaan ka soo noqonayo oo ma ka soo aadayo ma ka soo ixraamani karaa mar labaad oo cumra ma soo niyeysan karaa jawaabtu waa laanno waad ka baxday miiqaadkii laga soo xidhanayay cumrada waad dhaaftay ziyaaratulmadiinaad aaday ziyaaradii madiinaad soo gudatay waad soo noqonaysaa cumro labaad baad ka soo xidhan kartaa musdalifa madiine agteeda markaad soo marayso cumro labaad baad soo gudan kartaa midda culimmadu ay wax ka sheegaan wax weeye adoo maka jooga inaad cumrada ku noqnoqoto oo intaad maalan tanciim ama xaramka khaarijkiisa u baxdo soo xidhato haddana cumro kala gudato haddana baxdo haddana soo xidhato isla maka dhexdeedii agagaarkeeda middaas bay culimmadu qaar ka mida ka yidhaahdaan waa laga fiican yahay laakiin haddaad dana kale u baxdo ood miiqaadkii dhaafto ood haddana soo noqoto cumro kale walaalkeen wuxuu leeyahay sheekh assalaamu calaykum sheekh waxaan haystaa agoon mana loo walqalin ma u wanqali karaa ama ciddooda ayaa laga rabaa wanqalka waxaa laga rabaa waalidkaa laga rabaa culimadu wanqalku ma waajiba mise waa sunna isugu khilaafsan yihin laakiin laba gooraba wanqalka waxaa laga rabaa waalidka gaar ahaan aabbaha lagu leeyahy aabbu waa inniisa ka wanqalo hadduu ka wanqali waayo oo uu dhinto ciddii kale ka wanqalaysay qaraabada ah way ka wanqali kartaa hadda aduu gacanta agoonta ku hayso xoolahaaga inaad ku bixiso ood ka wanqasho dhib ma laha amaa xoolahooda iyagu ay leeyihiin inay iyagu weynaadaan oo ay baxsadaan ama iska wanqalaan mooye xoolahooda kuma tasarufi kartid xoolahooda kuma tasarruf laanna xoolaha agoonta wax aan waajib ahayn laguma bixin karo dayn lagu leeyahay laga guday iyaga in laga masruufo noloshooda laga bixiyo seke ku waajibtay laakiin waxyaala xataa sunna iyo tabarucaad sunna ah xoolaha agoonta looma isticmaali karo lagumana bixin karayo assalaamu calaykum sheekh alle ii bari waxaan dabanayaa waxaan rabaa duco alle in awlaad isiiyo awlaad saalixa inta awlaad u baahan oo dhan ama awlaad la-aanah awlaad khayr qabta allah siiyo aamiin inta awlaadda haysatana awlaadda allah u xifdiyo waxaan kaloon ku dhihi lahaa awlaad la-aantu waxaa laga yaabaa inay maslaxadaada tahay kolba sida ilaahay kuu dooraa maslaxada kuugu jirta marka hadduu ilaahay ku siiyana khayr hadduu ku siin waayana sidaa ku sabir inay sidaasi maslaxo kuu tahay bay u badan tahay kolba wixii ilaahay kuu dooro baa khayr ku jira nacam sheekh wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu calaykum sheekh bidaarta haddii la beero si timo loo keeno ama loo soo bixiyo ma saxba mise waa khalad bidaarta haddaabaad beeri kartaan iska beerta hal shardi unbaa shardi ah inaydaan idinkoo bidaar le gabdhaha ku sirin oo dumarkaydaan u been guurin unbaa shardi ah jidhka bini aadamka isbedelada ku dhaca wixii ceebee kusoo korodha een asal ahayn haddiiba la hagaajin karo way bannaanta in laga hagaajiyo
soma wixii ceeb ahaan u muuqda wixii ilaahay ku abuuray oo khilqada asalka ah in la bedelo waa xaraan wala amrunhum fala yughayyiruna khalqa Allah midab buu ilaahay ku siiyay inaad bedesho lama ogola ilaahay suuru ku siiyay suuradii inaad bedesho lama ogola sidii ilaahay ku abuuray oo ku siiyay ha bedelin laakiin haddii jirto waxyaalo abuurkii bini aadamka ka yara baxsan oo ku soo kordhay markaasi waa laga daaweyn karaa bidaartaasaa ka mid ah sooma bidaartaasaa ka mid ah haddiiba la daaweyn karo timo loo soo saari karo waa dhib male bay leeyahay sidaas daradeed baa waxay u qaybiyaan operationada jidhka lagu qurxiyo ilan yani qalliimaa jira jidhka lagu sameeyo oo lagu qurxiyo waxay leeyihin waxa laga qurxinayo hadduu yahay ceeb kusoo korodhay iyo naqsi kusoo kordhay way bannaan tahay hadduu yahay wax asaloo ilaahay ku abuurayna waxay leeyihiin maya sidaa loo daynaya marka dhib male ninkii bidaar leh oo bidaarta iska hagaajinaya way u bannaan tahay allahu aclam qofkan sheekhana wuxuu weydiiyey sheekh diinta maxay ka qabtaa timaha oo la madoobeeyo horeyna waa uga hadalnay marar fara badan timaha oo la madoobeeyo khilaaf baa ku jira labo dood lagama qabo timuhu hadday xirroobaan in guduud lagu bedelo iyo in lagu bedelo midabka brownka ah brownku wax weeye waa guduudka iyo wuxuu u dhexeeyaa iyo madowga madow iyo guduud isku jira weeye casuus ah katamb waa waqtigii nabiga sal alla alay slam loo yaqaanay kuwaasi dhib ma laha madowga dikhda oo timaha sidii ilaahay ku abuuray laga dhigayo taasaa khilaaf ku jira culimada qaar baa xaaraan dhahaya qaar waxay leeyihin waa makruuh qaar waxay leeyihin waa iska bannaan tahay khilaaf badan baa ku jira saxaabo ilaa 4 ah yay ka sugan tahay inay ama samayn jireen ama bannayn jireen xadiid baa jira uu nabigu leeyahay fi sahih muslim nin odayoo ciraystay ciradiisa bedela madowgana ka fogeeya marka jumlada madowga ka fogeeya ah ayay doodi ka taagan tahay ma hadalkii nabiga sallallahu alayhi wasallam mise waa mudraj oo saxaabiga ku daray waa mid labaad haddii hadalkii nabiga ay noqoto lafteedu maxay faa'iideynaysaa ma tahriim bay faa'iideyn ma karaahay faa'iideyn dood badan baa ku jirta almuhim marka la soo gabagabeeyo ma dhihi karo waa xaraan laakiin waxaan dhihi karaa waxa ka fiican in ama brownka aad isticmaashaan oo midabka bunniga ah ama guduudka laakiin madoobaysada ruuxii isticmaalay hal mar bay xaraan inay tahay la isla ogol yahay markaasina waa taan hadda sheegahayo bidaarta markaan ka hadlayay markuu ruuxu cid ku sirayo ama ku khayaamayo oo isagoo cirale cid uu guur ka rabo maalan uu timaa u madoobaysanayo markaasi khayaana ku jirta soo maaha khayaanada darteed bay marka xaraan u tahay waa la isla ogol yahay marka wallahu a'lam sheekh bahashan oo ka wajahazi la dhaho wayna dhibtay wala waxa inooga sheeg diintan oo ka wajahazi la dhaho kuwa jahazi waa ku celcelinay soo meesha lafteeda la igu weydiiyey meel badan oo la isku weydiiyey waasha lagama qanxamiya kuwa jahazi waxa weeye wax dhiba ma laha isticmaalka waa airtime aad iibsanayso soo ma markii uu ka dhamaado rasiidka lacagtu ka dhamaato oodan markaana lacag haysan ayaad waxaad iibsanaysaa ma lacag baad deysanaysaa mise airtime baad deysan laakiin lacagtii haddaad cash bixinaysa lagaa siin lahaa lacag ka badan baa lagaa siin lahaa masalada inaad fahantaan ubaa waxay tahay shirkadda waxaad ka qaadatay lacag ma aha shirkadda waxaad ka qaadatay waa service waa khidmad aad ku xidhiidho bay shirkadda ku siisay sidaas daraaddeed airtime-ka markaad daynsato haddaad intaad u tagto meelahaas muxuu ahay embeesada aad tidhahda lacag iiga dhiga ya 45 baan ka daynsaday airtime 45 ii cash gareeya
ملقايلا ملقاشكريلا ملقاشكريلا معايا شركة الحق مصري من هذا كده يصير واحد كده يصير ايرتايم ايرتايم محوية ومنفعة العق ما هذا منفعة دينستو وهاد قيمه كاش كقيمة كسية لقاسية ما بنانت أيوة وحيقول لي أنت وكل الدكان كأدو تشوف هذا ترى هذا عاقم بيها هذا كاش يسينيس العاق عدانا هذا يسينيس سنة وعلى واتن شيء هذا دين كو قادنا سنة وصدر شيء طيب والعاق هذا ما هيستيل لكن صدر كان كو قادنا يا واتي وبنانت جوبنا وبنانتها بيع الأجل بالنا ولماذا القدر كود وقنينه تانينا وحي لم يتاهي هذا الشركات اير تايم بيجيبين يسا العقد ما بيعنيش لكن اير تايم بيكاقد يسا اير تايم كهدات العقد كاش سيني سنة كنتم مركا الله بحضو كنتم كوحو ديك ميكو سيني سنة هدي الدين كقادنا يسنة وحبيكو سهرنا يسا سوزا اسمعي قيمي كاش قيمة كقال سمي كاسي صحوي خسارة وبدأ عدي مركي كاش تهين الرخيص كأهي مركي الدين تلقو قادين هنا كقال سنة يوحل سارنا يوح سيداس درادي ويبنان تهي ديبنا ملا مشكلة ملا مركا او فهمك وخلطما يذكر هذا إذا وحوي مركا دو قادتان واحد شركة كده يستين إني العقتها كدي من العقد والسيادة وضطي لك عشان يسا سامر كذو فهمت العقد إني تهي وحيماني يسدين العقد لصارتي وصل حيس سيدا أنا ما فهمك وخلق فهمك الصح ده شركة واحد كيب ستين منفعه مركي كاش تهي مركي دين تهي خلق على السنة سيدا مركي تهينا شريعة بالمقابل فده عبد سائل الله كذا تحدي وملا نعم شيخ وحلم إذا تاس وحبريها دم بصوبة حي أو فوليزا لنا marka fulizaadu iyada nafteeda xukunkeeda waa maxay fuliza oo wax Safaricom khidmad Safaricom soo saartay oo hadii M-Pesa lacag ku jirin fuliza waa iska register gareynaysa ila xad muayyan ayaa aad lacagti diranaysa مثلا 5 kun oo kale adigoo M-Pesa sifir tahay ayaa maxay ahayd ya waxa doranaysa 5 kun iga sii dira 5 kun bay ka dirayaan waxaan u maleeyaa service yarna way u saaran tahay hadhow markii lacag soo gasho M-Pesadaada anytime oo lacag soo gasho way goosanayaan lacagtii ay ku direen waxaan u maleeyaa saas weeyaan macnaha saxda ha marka way ka duwan tahay hadii aad soo gelin waysana lacag baa ku fuulaysaa baa leeyahay طيب جوابتي هوري هدات فهمتين تاني ويدير عضه مرك صوما جوابتي هوري maxaa ku baxaan iri haday lacag tahay lacag la saaranayo waa ribo Soomaaliya taa marka way cadahay mar haday tahay lacag lagu siinayo lagu deyminayo lacagna la saaranayo riba al-qard baa la yiraahdaa waa riba cad laakiin midii hore waxaynu niri waxaad shirkadda ka qaadatay lacag ma ahayne manfaco aad ku xiriireysay ahayd waa badeeco markaa badeeco iyo lacag way kala duwantay wuxuu leeyahay marka aan we normally pay rent on 5th of every month but failure to do so there is fine penalty is this riba wuxuu leeyahay sheekh marka aan kirada bixinayno waxa aan bixinaa bisha shanteeda markasta laakiin hadii aan ka dib dhacno bisha shanteeda qofka iska guriga ama shirkadda wayna qarameynaysaa lacag bayna dul saaraysaa ha lacag fine bayna dul saaraysaa marka lacagta ma riba sababta waa ribo laakiin wadanka qaanuunkiisa guriga lagu kala kireysto ayaa wuxuu dhigayaa heshiiskaad saxiixaysaba haddii waqtigii kirada lagu bilxala aad kala daahdo in penalty lagu saarayo oo aad bixinayso waana shuruuc inta badan reer galbeedka laga keenay Yurubiyaanka laga keenay marka haddii aad marka horeed galaysaba aad iska saari kartana waa khayr
haddaadan shardigaa saari karaynin markaasi waxaad samaynaysaa waxaad iska ilaalinaysaa inaad kala dib dhacdo waqtigii kirada la bixin lahaa ya oo ribadu kugu bilaabanayso ayaad markaa ka taxadari oo iska ilaalinay haddaad shardiga dhan marka horeba diidi karto oo iska saari kartana iska saar wallahu a'lam walaalkan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekh khayr allah ku siiyo waxaan ku jecelahay ilaahay dartii sheekh qof ayaa dayn iga qaba una ii diiday maxaan ka sameeyaa qof kalena wax uu ii sheegay ayuu igu gadiyey marka bal xalkeen koobaad marka labaad dayn aad dad ku lahayd oo lagu diiday isaga sabir aakhara geyso waxaan inta ahayn miyaan ku dhihi karnaa haddaan hadda dagaal gal ku nidhaahdo dantaada maaha haddaan maxkamad tagoo dacwey ku dhahanana maxkamad waxba ku heli mayso waa rafaad iyo kadeed soo maaha marka sida kuugu roon isaga sabir ilaahay hortiisa geyso maalina maanta uga baahi badan tahay baad heli insha allahu tacaala xuquuqdaada marna lumi mayso wakadalika su-aasha dambana waa sidoo kale ruux wax kugu dabarogay oo kuu gafay iska saamax ya ajirkaaga ilaahay baad ku leedahay faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah ruuxii cafiya oo walaalkii iyo isaga dhexdiisa wixii hagaajiya oo u tanaasula dadka iska saamaxa ajirkiisa ilaahay korkiisa waay adiga laba kee kuu roon inaad addoommada ajir ku yeelato iyo inaad ilaahay ku yeelato kee fiican ya inaad ilaahay ku yeelato saas daraaddeed iska saamax faraha ka qaad ilaahay agtiisaad ku yeelan insha allahu tacaala nacam sheekh labadan waraaq laba qof bay ka kala imaatay ma hal qof wuxuu su-aashan waa hal su-aal wuxuu weydiinayaa ama waxaan u maleeya hal qof baa soo qoraya wuxuu rabay inuu chanceskiisa oo loo jawaabo inuu badiyo marka waa lagu jawaabay wuxuu leeyahay nin baa darawal ahaa darawalkii ajal baa ku timid darawal oo shidaal baabuur shidaal waday shidaalkii ayaa laga doomay daatay ninkiina waa ku dhintay markuu ku dhintay dadkii uu iska lahaa shidaalkii ayaa imaadeen gaarigii carruurta ay ka qaateen carruurtii oo gaari oo maxay ahayday gaarigii ninka lahaa ayay qaateenoo carruurtii oo ay taama ayay ka tageen marka dadka xaq ma u leeyihiin inay saas sameeyaan sharci ahaan shilalka gawaadhida oo baabuurka mar darawalkaa lagu yeeshaa marna maqaadiir ilaahay dhacday weeyo cidna laguma laha baabuurka isaga waxba laguma yeesho shareecadeenna marka la yidhaahdo baabuur gadoomay ama cid ku dhacay baabuurka ciddii lahayd iyo shirkaddii lahayd iyo shaqsigii lahaa waxba looma raacdo maxaa yeelay baabuurku waa bir ingegan mas-uuliyadi ma raacdo mas-uuliyad ma fuusho wuxuu la mid yahay oo kale miduu nabigu lahaa sal alla alay slam alcajimaau jubaar waxyaalaha nafleyda xoolaha iyo wixii dhibay geystaan wax ka soo qaad ma leh almacdinu jubaar meelaha macaadinta laga qodo macdanta godadkaasi wixii ku dhinta ama ku dhaca ama ku dhintaay wax ka soo qaad ma leh yani waxa weeye cidda baabuurka wadda ee mas-uulka ah ee caqliga leh ee hogaaminaysa ee wax ku dhufanaysa ee ka badbaadinaysa waa darawalka soo ma marka darawalkaa wax loo raacan darawalkana goorma wax loo raacanay haddii shilka dhacay isagu uu sabab u ahaa siduu sabab ugu noqon karaa maalan speed khaldan buu ku socday maalan meel aan baabuurta laga goynin buu ka gooyey soo mada garan maalan darooguu cunay isagoo darawal ah oo baabuur waduu qaad cunahaya soo ma ilan qaadku waa nooc daroogaa waaye ruuxa waxbaa isu sawiraya soo mada marmarka qaarkood
fahmada alla fogaanaysa waa jidboonaya waa qaadiroonaya waxa laga yaabaa inuu buur dhan oo hortiisa uu wado inay laabigii tahay oo gaariga ku qaado marka haddii khalad darawalku uu galay uu shilka keeno darawalka waa lagu leeyahay gaariga burburay shidaalka daatay khasaaraha yimid bini aadanka wax ku noqday kulli waa lagu yeelanaa haddii khalad isagu uusan lahayn oo maqaadiir ilaahay isagoo dadaalaya ay timaado oo marka la xaqiijiyo shilku sababtu ku dhacay inuusan isagu lahayn markaasi maqaadiir ilaahay oo dhacday waaye marka cidna laguma laha marka masaladan ku soo bood oo carruurta agoonta baabuurka ka kaxayso guriga ka saar saas maaha waa in masalada la baadho riboodka booliiska la fiiriyo laga baaraan dego khaladka isaga lahaa ma lahayn miya see wax ku dhaceen halkaasay ka soo bixi kartaa yaa lagu leeyahay shilkan dhacay dhibkaas ayaa geystay sheekh walaalkeena wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekh umal ilaahay dartii ayaan kuu jeclahay sheekh ii soo duceeyay waxaan rabaa inaan cilmi barto uuna igu adag yahay cilmiga midda kale carruurta igu duceey inuu ilaahay iga dhigo bari waxaad jeceshahay in allah ku siiyo adiga iyo muslimiinta dhammaanba waxaan jeclahay allah ina siiyo cilmiga iyo camalkana allah inoo fududeeyo naam sheekh saailkan wuxuu leeyahay sheekh safar ayaan ahay laba salaad ayaan israaciyey salaada kale oo xigta qabays miyaa layga rabaa laba salaadood ayaan israaciyey safar ayaan ahay laba salaadood ayaan israaciyey salaada ku xigto qabays miyaa layga rabaa maxaa keenay qabayska ma janaabaa kugu dhacday ma reerkaad u galmootay miyaad qarawday ila qabayska waxbaa keena soo maa ha qabayska wixii keenaya hadduusan jirin ma qabaysan maxaa u qabaysanaya saailkan wuxuu leeyahay horey sheekh su-aashan waxaan u maleeyaa intuu wuxuu qoray markii jawaabtii aad ka bixisay hore oo kowa jahazi wuxuu leeyahay sheekh umal kowa jahazi wuxuu dhahay waa bannaan tahay sidoo horey oo u sheegay lacagta yaroo la socotona waxaa tiri in ay tahay waxyaalaha processka oo fiiskii processka waxyaalaha marka waa iska bannaan tahay marka wuxuu leeyahay shardiga ama arrinta ma lagu dabaqi karaa loonyada kale lacagta kor saaran oo la dhahayo waa processing fees ayadana inay tahay sidaa sax u tahay labada mas'alo waan kala cadeeyay soo ma midina waa lacag la daynsanayo midina waa manfaco la daynsanayo soo ma lacag la daynsanayo kaasha wixii la saaro waa ribo badeeco iyo manfaco la kala iibsanayo wixii la saarto waa ganacsi saas daradeed wax la isii qiyaas qaadan kara ma wax isku mid ah sheekh ninkan wuxuu leeyahay gabar ayaan ka ballan qaaday in aan guursan doono haddana niyadayda ma rabto gabadhaas haddaan ballanta ka baxo wax dhiba ma jiraa sheekh guurka marka uu dhacayo waxaa la rabaa ninku inuu islaanta uu guursanayo gabadha uu guursanayo ku qanacsan yahay sidaas daraaddeed nebigu sal alla alay wasalam nebigii saxaabigii u yimid wuxuu ku yidhi waan guursanayaa wuxuu ku yidhi gabadhaad guursanayso ma soo fiirisa kac soo fiiri buu ku yidhi kac soo arag fa innahu axraa an yu'dama baynakumaa guurkiinu inuu daa'imo dhexdiinna taasaa u dhow bacdaa maxaa laga wadaa kac soo aragoo soo fiiri oo kusoo qanaca markaad ku qanacdo ruuxaad ku qanacday guurkiisu waa jirayaa markaa soo maa laakiin ruuxaadan ku qanacsanayn haddaad uun muxuu ahay iska gasho waxaa laga yaabaa noloshaasi inaysan sii soconin sidaas daraaddeed ayaa la yidhi gabadha la guursanayana waa inay khiyaarkeeda ninka ku guursadoon la qasbin raalli ku noqoto ninka guursanayana waxaa la rabaa inuu qanaaco iyo qanacsanaan ku guursado
haddiiba adoon guursaninba hadda aad qalbigaagii uu ka jeedsaday oodan rabin gabadha ha lugoynin horay baad ballanqaad been aad ku lugaysay waan ku guursanaya saad ugu haysaad waqtiga ka lumisay haddana adoon rabin intaad guursato oo aad weelkeeda ka kala jabiso haddana berri inaad wadi weydo dirto soo kama sii dara taasaa ka sii dara sidaas daraaddeed markaas waxaa fiican inaad ka baxdo mar haddaadan ku qanacsanayn oodan raalli ku ahayn oodan rabin ha lugoynin ee waxaad tidhaahdaa markii horena sibaan ismoodsiiyey haddana qalbigaygii baa isbedelay iyadoo lafteeduna waa sidaa dhallinyaradu mushkilada haysatay ka mid tahay iyadoon kowba la joogin ayaa muxuu ahaayey waxaa la isla gaalahayaa stage loo baahnaa inuu dambeeyo soo ma markaasaa waxa weeye qalbiga la isa siinayaa waa la isla durkahayaa waan ku jeclahay jacaylka wax jacayloo jira ma jacaylkaasoo dhan guurka ka horreeya waa jacayl digaag waaye wax ka jira ma caashaq digaag baa caashaqa iyo jacaylka rasmiga ah wuxuu bilowdaa markaad guriga isugu tagtaan oo ruuxii aad aragto oo aad istaabataan ood wada dhaqantaan markaasuu ama jacayl ku yimaadaa ama nacayb yimaadaa waxa ka horreeya bannaanka waan ku jeclahay iyo samadaad ila jirtaa iyo waxaan aad daldalaysaan wax ka jira male ha lugoynina gabdhahan ha lugoynina idinkuna ha isu lugoynina jacayl wuxuu ka bilowdaa habeenka la aqal kaliya wixii ka dambeeya wixii ka horreeya xaqiiqaba kuma dhisnaba waad macaan tahay iyo waad khadhaadhahay iyo maadaa dhadhamiyey abay macaanay intaad ku hayso maadaa dhadhamiyey inay macaanta inay khadhaadhahay sidaas daraaddeed aslanba waxaan hore ee lagu lugoyo dhallinyaradu ku rafaadsan yihiin waa waxun iska maaweela ah waaye wax xaqiiqaa maaha xaqiiqadu waxay ka bilaabataa guurka jacaylkiisa ama kala boodiddu waa marka laysla aqalgalo marka ballanqaadkan hore ee beenteen waxba ka jirin iska daaya wallahu aclam wuduu ya janaba ikitekelezwa unaweza fanya hiyo wuduu kusali sala ya haddii aad u weysaysato janaabo markaad qabaysanaysid aad si fiican u weysaysatid sida sunnada ah weysada kadib aad qabaysatid weysada ma ku tukan karaa salaadaha faradka laana weyse saxa wey nabigu sal alla alay wasalam markuu qabaysan rabo weysaduu hormarin jiray weysada ayuu hormarin jiray markuu weysaysto kadib buu qabaysan jiray markuu qabayskiisa dhammaystana weyse dib kama lama imaan jiray weysadaa qabayska ka horraysa ayuu nebigu ku tukan jiray oo ku cibaadaysan jiray xadiidka caaisha sunanka ku yimid baabu wuxuuba leeyahayba nebigu qabayska kadib sal alla alay wasalam maba weysaysan jirinba laba mid inuu weysada hormariyo iyo inuu weysadii qabayska isdhex geliyo oo intuu niyeysto qabaysto weysadiina ay ku dhex jirto iyo inay weysadu horraysiyo qabaysku dambeeyo laakiin inaad qabaysato markaad qabays ka baxdana aada weysaysato nebigu ma samayn jirin sal alla alay wasalam saas daraaddeed weysadaas waa weyse saxa waana weyse aad ku cibaadaysan karto nacam iyo sheekh haddaa wuxuu leeyahay ninkan marka aad weysaysatay ood qabaysanaysa haddaad isdaartid horta xubinka markaad qabaysan rabto isaga ugu horreeya wax la dhaqaba marka isaga la dhaqa kadib baa la weysaystaa qabayskuna wuu ka dambeeyaa sidaasoo kale markaad samayso xubinku dhaqitaan dambe kaagama baahna soo ma laakiin waxaa dhici karta adoo qabaysanaya markaad biyaha ismarmarinaysa inay gacantu kaa taabato adoon ku talagelin markaasoo kale culimada qaar waxay leeyihiin hadday dhacdo markaa weysada soo celi dib ka weysayso qaarna waxay leeyihiin ma ahee xubinka taranka taabashadiisu waxay weysada jebisaa markaad shahwo ula qasado taabasho aad dan ka leedahay laakiin hadday gacantu isaga dhacdo weysada ma jebinayo qaar baa qaba qoladaasina waxay leeyihiin markaa taabashada uun gacantu taabatay weysadaadii ma jabine ka soco qolana waxay leeyihiin ma ahee haddayba gacantu taabatay weysada dib ka keen ma fahanteen
marka ihtiyaadka iyo dadaalku wuxuu ku jiraa taxadarku hadiiba gacanta uu taabato xubinka marka dib ka weysayso laakiin hadaadan taabanin waad weysa qabtaa sheekh su'aashan saailkan weydiinaya wuxuu leeyahay aniga waxaan ahay dhakhtar operation ayaana galaa waxaan ahay dhakhtar oo operation ka sameeyo marka marmar waxaa dhici kartaa inaan theater-ka aan ku jirno saacado fara badan marmar qaar waxay qaadataa 8 saac ilaa 10 saac qallinka marka waxaa laga yaabaa inaad salaada duhur casr ilaa maqrib ay ka tagto adigoo theater-ka ku jirto oo qof qalayso mar kastana ma aha laakiin marmar baa sidaa dhacda xaaladda marka maxaan nagala talin lahayd maxaan sameynaa salaadaha haddaad israacin karto israaci waa xaalad khaasa xaaja keentay naf bini aadan baa la badbaadinayaa salaadaha marka israaci haddaad maalan operationka gelayso duurku markuu soo galo ood is leedahay ilaa maqrib baad ku jiri doontaa salaaddii casarka soo hormari duhurka intaadan operationka gelin duhurkii tuko casarkana tuko israaci kadibna operationka gal wakadalika maqribka haddii aad geli rabto salaaddii cishaha soo hormari maqribka tuko cishahana raaci operationka gal haddii ay dhacdo adoo ku jira operationkii inuu soo galo maqribka dib u dhig markaad operation ka baxdo salaada cishaha iyo maqribkii oo dib u soo dhigtay isla tuko laakiin ishkaalku wuxuu imaanayaa duhurka ka hor baad gashay operationkii ilaa duhurkii buu socday casarkii buu socday habeenkii buu gaadhay maxaa la sameynaya markaas oo kale salaadihii laysu guurguurin lahaaba muddadoodii oo dhan buu operation ku jiray dhakhtarkani see la yeelay hadduu heli karayo janis yar ilaan kolli dhakhaatiir kala caawinaya oo la shaqaynaya inta badan hadduu janis yar heli karo uu ku tukado waa inuu tukado hadduu waayo maxaa la samaynayaa markaasoo kale waxay noqonaysaa xaaladdii waxaa looga qiyaas qaadan karaa dagaalka marka lagu jiro oo cadowga gacanta laysula tago oo salaada waqtigeedu soo galo ruuxu wuxuu u tukanayaa asagoo dagaalamaya ordaya shaqada haya wuu tukanayaa see u tukanayaa cibaadaadka salaadii akhrintii afku ka akhrin yani waxa weeye qalbigana wuu ka wadi wixii uu la imaan karo uu la imaan wuxuusan la imaan karayninna waa laga cafina ya laanna waxa weeye la dhihi maayo naf bini aadan oo khatar ku jirta intaad isaga tagto tuko kadibna naftii ha dhimato khatar ha gasho maya sharcadu dhihi mayso salaad waqtigeedii soo galayna waqtigeedii ha laga saaro oo ha la isaga tegana sharcadu dhihi mayso laakiin maxay dhihi iswaafajiya soo ma haddii ninkii dagaalamayay oo cadowga la dagaalamaya loo ogolaaday isagoo ordaya oo seefta tuuraya oo waranka tuuraya oo gaadiidka saaran inuu tukado haddii loo ogolaaday ninkani waaba taagan yahay soo ma qaliin ugu hayaa waa taagan yahay marka wuu tukan karaa laakiin arkaantii salaada wixii uu la imaan karana wuu la imaan wuxuu la imaan karana waa laga cafinaa wuxuu la imaan kari waayo wixii akhrin ahaana carabku ka akhrin wixii uu la imaan kara rukuucdii sujuudi wuu la imaan hadduu la imaan kari waayo wuu ishaari siduu taagan oo qaliinka wada ayuu rukuucdii ishaari sujuudi wuu ishaari madaxu ka ishaaraya sidaasuu qaliinkana ku dhamayn salaadahana uu ku tukanayaa wallahu a'lam hiyo swali imeeleweka yule daktari ameuliza ama inatakana tuelezee kwa Kiswahili assalaamu alaykum sheekh aabahay oo dhintay ayaa la xusaa sanadkii mar haddaan diido lacagta xuska ma dembi iga soo gaari ama anoo ka baqayo habaar haddaan dhiibo ka war dadka hal sano sanadkiiba hal mar keliya waalidkood xusaya
hal sanadkiiba hal mar keliya waalidba ma yaqaanaan kuwaas waalid maxay tahay sanadkiiba hal mar wax loo bixinayo waxa saxa waalidka markastood waxishaba wax u bixi ya ma sanadkii hal maalin oo la fiirsanay markii wax ku soo galaan wax u bixi salaad ishaad soo tukaneen masaakiin ba taagan boqolka shilin jeebkaaga ku jira miskiinka si waalidkana ula niyo Soomaaliyeed masaajid baa la dhisayaa kunka shilin ugu dar marka sideedayba khalad u tahayba in la yiraahdo sanadkii maalin baan la fiirsanayna waana bidco aan sal lahayn waa bidco aan sal lahayn maxaa yeelay sanadkii hal mar oo dadkii dhintay la xuso waalid la xuso shariicadeena ka mid maaha laakiin shariicadu waxay taqaanaa waalidka waxa loo sadaqeeyo waalidka loo duceeyo waalidka waxa loo bixiyo وهكذا والدك وحي عمل صالحة شرعات ugu talagashay loo bixiyo xilli walba xilligii la heli karo hadii ay ku diidaan dadku qaraabadu haday sameeyaan aslaan in aad u naseexayso baa waajib kugu ah haday ka diidaan adu waxba ku darsanay hadad habaar ka baqayso yaa ku habaaraya yaa ku habaaraya ka baqayso haday hooyo tahay أن ولا الكاوية هبار خلط لقوه هباري كو قبن مايو حتى هو يدعى هذا خلط قوه هبارته إلهي ما كي يليه يا هذا كنت هذا هو يهتكنن هذا تكتوانكو هباري صلاة ما كتك هو يوان تكني هاي هبارين ده هذا دي هبارتنا لقاي يلي مايو هباركو حال الرواء إنو جد كيسا هايستو wax khaldan hadii lagu habaarado adigu kaga saxsan tahay habaarkaasi socon maayo halkan dhaafi maayo sidaas daraadeed ha ka baqine wixii diinta waafaqsan hadii dadku ka diidaan adigu uu khaladka naftaada kala badbaad ha ka qayb qaadan marnaba wallahu a'lam sheekh wuxuu leeyahay baaxsharan sameeysta marka qof baa deen iga qaatay deentii qofkii markuu ii soo celinayay loan intuu soo qaatay buu deentaydii ku bixiyay marka loonka wax athar ah ma ku leeyahay baasharadayda ka qaado deyntaada isaga iyo loonku qaatay isaga jirta lan hada tirada warada xoolahan xaraam waaye aniga xalaal ii keen ma keeleysa ma isaga iyo loonkiisa isaga jirta adiga deyntaadii ka qaado waa xaqad ku lahayd wallahu a'lam dadka sheekh jirkooda wax ku sawiro oo wax ku sameeyo xalaal ba mise xaraan arintaas ma qof jirkiisa waxa ku qabo nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam la'ana Allahu al-washima wal-mustawshima al-mughayyirat khalq Allah hadithka akhirkiis washmiga waxa la dhihi jiray waxa loo yaqaanaa iridka ama jirka midabkiisa in midab kale lagu talaalo oo wax laga bedelo waaga hore waxay sameeyeen jireen iridka ayaa midab madow lagu talaali jiray hada laakiin jirka lagu talaalaa Soomaa marka qaarkood sawir baa laga dhigaa libaax baa lagu sawiraa mar waxay ku sawiraan naagtu jeclaabo ku sawiraa naagtu ninkay jeclada isku sawirtaa marka waa kan soo sheegnay jawaabtiisu mas'alo horan ka jawaabaynay ilaahay jirkii uu abuuray iyo khalqigiisii oo la bedelayo waa nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam midka loo sameeyayna lacnada ha ku dhacdo ka sameeyayna lacnada ha ku dhacdo marka lama ogola haduu ruuxu sameeyay maxaa dhacaya hadii ruuxu lagu sameeyay hadii uu iska bedeli karo tiri kara waa inuu tiro hadii aan la tiri kareenina tawbad uma laga rabaa laana waxa dhacda sawirada qaarkood jirka lagu sameeyo isbedelka lagu sameeyo lacag aad u badan baa lagu sameeyaa qaali ah hadhow hadii la yiraahdo ha laga bedelo lacag badan buu u baahan yahay hal laga inuu saheli karo waxa dhayn karaysa inuu dib kale la yimaado markaas oo kale toobad baa looga baahan hadan qisay yar idin sheego niba Mareykanka niba ay warramay Mareykanka wuxuu yiri maaliba waxa dhacday anoo salaad tukanahay masaajid soo taahay oo salaad ku jira
ayaa waxay u soo xidhay buuri ninku cadaan buuri ninka jidhkiisa dhan waxbaa ku sawiran salaadii waan ku jiraa ninkan gadaal igaga soo xidhay salaada yaan yara milicsaday buuri markaas waxaan arkay buuri jidhkiisa oo dhan wada doorsoon markaas waxaan is yidhi wallahi kuwani kani malaha gaangiskii wax dili jiray weeye malaha inuu ku diluu rabaa salaadii wuxuu yidhi waswaas baan ku dhammaystay iyo baqdin salaadii markaan ka baxay ninkii si caadi uu ila tukaday salaadii buu ka baxay markaan ka baxano bannaanka u baxnay masaajidkaan weydiiyey buuri wareedha nin muslim aad u eg tahay maxay tahay waxaan ninkii wuxuu yidhi gaal baan ahaan jiray gabadh Soomaali ah ayaan saaxiib la ahaa buuri anoo gaal ah gabadha marka wuxuu yidhi ayada lafteedu ma fiicnayn qashinka iyo khamrada iyo tumashada iyo waxaana saaxiib ku ahayn gabadhii sidaan saa ula soconay saaxiib u ahay ayaan maalinkii daba waxaan idhi buu yidhi aan ku guursado markaasaa waxay tidhi gaal baa tahay oo ima geydid gaal baa tahay oo ima guursan kartid saaxiibnimadiina way ogoshahay guurna ma ogo macnaa iimaan baa ku jira soomaa caasiyad ba ha ahaatee laakiin iimaan baa ku jira waxay tidhi ima geydid oo ima guursan kartid ayib seen kugu guursadaa soo islaam bay tidhi waayahay buu yidhi ikaxeeyo ciddii islaami lahayd ii gey way soo kaxaysay bay tidhi wadaad buu ii keentay wadaadkii baa ii islaamiyey markuu islaamiyey baan diintii marka sii baadhay buuri waxbaan sii akhriyey diintii baan ogaaday buuri xaqiiqadeeda waan fiicnaaday khamradii baan ka baxay sinadii baan ka baxay qashinkii baan ka baxay gabadhii saaxiibnimadeedii waan gooyey waan hagaagay buuri waadiga ay arkahay buuri masaajidkaasaan joogaa waa cibaadaystaa waan fiicnahay laakiin waxaa dhacday buuri anoo fiicnaaday oo wadaad noqday oo diintii ku hagaagay ayaan gabadhii oo weli sidii ah yaan u tegay buuri waxaan idhi buuri naa sidani diintaad igelisay ma ahe ka soo bax diintaad ii sheegtay een galay iyo waxaad haysa isma lehe waxaan ka soo baxay aan isguursanay gabadhii wixii bay ka soo baxday buuri waan guursaday buuri way xijaabatay ayadoo fiican oo toosan iyo hadda xaas ii tahay buuri carruurna ii dhashay labadooda soo la yaab ma leh tani iyada oo khariban bay soo islaamisay iyadana isagii ay islaamisay baa soo hagaajiyey oo ilaahay sabab uga dhigay soo baa waxaa laga yaabaa gabadhaas meesha ilaahay hagaageeda ka bilaabay inay ahayd nin gaala inuu guursado markay diiday halkaasaa furuhuba ka bilowday soo maartaa furuhu wuxuu ka bilowday gaal baa tahay ima guursan kartid isaga inuu hagaagana qodobkaasa sabab u ahaa iyadu inay hagaagtana isla qodobkaasa sabab u ahaa waa meeshay markay yidhaahdaan ruuxa muslimka si kasta uu caasi u yahay iimaanka ku jira lama sahlana marka yani wax weeye waxaan ku keenay sawirada jidka lagu sameeyo mar baan waxba laga qaban karin waxaan ku yidhi buu yidhi war sawirkan maadaama aad islaamtay maad iska goysid wuxuu yidhi lacag aad u fara badan buu ikalifayaa mana haysto sidaas daraaddeed sidaasaan isaga tukanayaa goortii ilaahay waxay siiyana waan samayn laakiin hadda waan iska cibaadaysanaya wallahu aclam su-aashii ugu dambaysay weeyaan plot ayaan gatay 2014 haddana waxaan rabaa inaan iibiyo zaka ma ligu leeyahay muddada haysatay iib u yaallay ood rabtay inaad ka sii ganacsato niyadaas hadduu kuugu yaallay saka waa lagugu leeyahay haddaadan niyo ganacsi u haysanin oo intaad iibsatay oo iska haysatay un ama inaad dhisataad rabtay ama inaad iskaga kaa yaallood milki u haysato laakiin inaad ka ganacsatood sii iibisa ma aadan rabin sidaasaad muddadaa u haysatay markaa zaka laguguma laha dhulalku sideedaba waa badeecadoo kale haddii aad ula haysato dhulka milkiye u haysato ama inaad hadhow isticmaasho ama inaad dhisato u haysato saka laguma leh laakiin dhulalka kuugu yaalla aad ka ganacsatid aad sii iibisid aad ka faa'iidid
in alla inta niyadaas aad ku haysato dhan sanadaha ku marayo dhan zaka lagu leeyahay waa sida badeecada oo kale sanad walba waa in la qiimeeyo qiimaha lagu qiimeeyana waa in laga sakeeyo sanad walba hadana la qiimeeyo hadana laga sakeeyo maradu dhulku iib kugu yaal ood ka ganacsanayso wallahu a'lam kama umenunua ardhi hiyo na hujanunua kwa nia ya biashara basi unapouza hakuna zaka juu yake lakini kama umenunua kwa nia ya biashara inatakikana zaka yake sheekh su'aashu ugu dambaysay gabadha ayaa waxay leedahay sheekhu waxaan qabaa marad oo shaki ah ninkayga aan ka shakisnaay marka waxaan rabaa inaad ii soo duceyso Allah ku caafiyo shakigu waa cudur daawadiisuna wax weeyaan inaad shaydaanka ilaahay ka magan gasho shaydaanka keena warka uu ku sheegay inaad beeniso la dagaalanto adkaar baa jirta lagu xirsi xidho inaad xirsi xidhato laakiin waa cudur markuu ruuxa galo aad khatar u ah sheer wuxuu gaari karaa ruux xataa diintu ku cuslaato adduunyadii u khadhaaraato oo marka dambe ruux hadaa inuu istilaba uu qarka u istaago yani nolosha dhan baa ku xidhiidhiyamaysa shakigu markuu kugu weynaa marka shakigaas iyo waswaaskaas wuxuu u baahan yahay in lala dagaalamo ilaahay ka caafiyo innagana Allah inaga xifdiyo inta qabtana ilaahay ka caafiyo ilaahayna tabaaraka wa taala khaatimada inoo hagaajiyo majliskeenana majlis khayr qaba Allah ka dhigo intaan fadhinayna ilaahay inoogu dambi dhaafo wixii aan maqalayna ilaahay tabaaraka wa taala inoogu anfaco wixii carabku gafay ama inaga khaldamayna ilaahay inoo dhaafo jazakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh